tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2011 markii ay gudaha dalkaas si sharci darro ah u soo galeen ciidamada Kenya, shacabka ku nool gobolka Gado iyo gobolada Jubbooyinka waxa ay ka cabanayeen tacadiye iyo gaboodfallo bareer ah oo uga imaanayay ciidamada Kenya, kuwaas oo ay garbinayaan raallina ka ahayeen shakhsiyaad Soomaali ah oo uu hankoodu yahay sandareerto iyo kursi ay ugu hoos jiraan ciidamada dalka ku soo duulay. gaar ahaan marka loo eego shacabka gobolka Gado, intaasi waxa u dheer dhibaato iyo caburin joogto ah oo uga imaanaysa ciidamo ka amar qaata hogaamiye Axmed Madoobe. ujeedka loogu hayo dhibaatadaas joogtada ah iyo handadaaduna ay tahay maxaad ula shaqaysaan dowladda dhexe ama ciidamada xoogga ee ku howlan sugidda amniga gobolka Gado, sida uu tilmaamay Korneel Aadan Axmed Xirsi Aadan Rufle oo mar soo noqday afayeenkii ciidamada xoogga ee gobolka Gado. ayadoo shacabka reer Gado uu yahay shacab jecel maamul mid hoose iyo mid sare jacaylkooduna uu ugu badan yahay in la helo qaran Soomaaliyeed baa maamulku sheegay Kismaayo joogay wuxuu ku qabta Kismaayo shir uu ku burburinayo qaranka Soomaaliyeed laguna sameeyay inqilaab. waxa ku xigtay taliyay ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43aad iyo taliyayaashii nabad sugidda iyo qarankii Soomaaliyeed ba in laga soo celiyo magaalada Kismaayo laga diiday dikreetadii sharciga ahayd ee qaranka Soomaaliya oo loo wada dhan yahay. ayadoo ay shacabka reer Jubbaan hubo 100% inuu qaran u baahan yahay cadaaladna ka yahay in qaran la helo, laakiin hal qof iyo laba qof iyo hogaamiye kooxeed afkaarta arrinta ay tahay. Korneel Aadan Rufle ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in shacabka gobolka Gado aysan raalli ka noqon doonin curyaaminta dowladda iyo rajada ummadda Soomaaliyeed, isagoo ku eedeeyay madaxda maamulka Jubbaland in ay marar badan ishortaageen digirootooyin ay dowladda gobolkaasi ugu magacowday saraakiil ciidan. dhinaca kale Korneel Aadan Axmed Xirsi ayaa soo bandhigay gaboodfalka lagu hayo shacabka Gado, isagoo sheegay in si arxan darro ah loo gumaado shacabka gobolkaasi iyadoo qiil looga dhigayo inay la shaqeeyaan al-shabaab oo ay ka soo horjeedaan maamulka Axmed Madoobe. wuxuuna wacad ku maray isagoo hadalkiisa sii wata in aysan sii fiirsan doonin dhibaatooyinkaasi oo ay hadda kadib mamnuuc ka yihiin mas-uuliyiinta iyo cid kasta oo hoos tagta nidaamka Axmed Madoobe deegaanada gobolka Gado. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay isweydiiyaan gobolka Gado waxa ka dhacay Falastiin og iyo shanta qaaradood meel ay ka dhaceen male. kullu nazuulun can raaciyatu wa kullukum can raaciya. nimanka Kismaayo yaa maqlay gabdha Soomaaliyeed oo durreedaha weyse qabaan adoon kufsatay, darbiya dhulkii laga jeexay, diyaaradaha duqeeya kama hadlaan. qaranka Soomaaliyeedna faragelin bay ku sheegeen. sidaa aawadeed annagoo kaashanayno shacabka iyaga baa waxaan go'aansanaa qaranka cid kasta oo ka soo horjeeday calanka buluuga ah afkaar iyo adimo wixii aan isaga hortaagi karno inaan isaga hortaagno. intaa waa waxa jiro dhabta ah. waxaan rabaa gaar ahaan shacabka reer Gado ama dadka gobolka ka soo jeedo dibadaha jiro ama gobolada kale jiro ka maqan gobolka inaan u sheego waxaa shir jira ay degmada Garbaharey ku qabtay 16 bishan barasaabka gobolka Gado, taliyaha booliis federaalka gobolka Gado iyo gudoomiyaha degmada Garbaharey oo ah magaalo madaxda gobolka Gado. saddexno isla dhalataa dhashay waa ilma adeer saddexdaan nin. waxaan rabaa dadka reer Gado inaan su'aalo dalkan burburay oo isla qabashadii dib u dhiska u baahan saddex nin oo saddexdooda aaba isla dhalatay saddexdaa xil saamin u leeyihiin oo ma qaadan karaan. hadday saqaateen maxay nagu sameeyeen? ugu dambayn Korneel Aadan Rufle ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo talisyadeeda ciidanka inay wax ka qabtaan tabashooyinkooda islamarkaana ay dib u soo fiiriyaan silaca ay ku jiraan shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Gado, maadaama uu sheegay in lagu dhacayo oo lagu dilayo awoodda dowlado kale oo shisheeye. wasaaradda amniga taliska booliiska Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa shacabka reer Gado afkooda anoo ku hadlayo Korneel Aadan Maxamed Siyaad oo la dagaalamaya ciidankii qaranka oo saraakiisha asaga ku xigtay masaafurinayo ka tiinadaynayo oo aeroboorradii iyo migreeshinadii iyo ilihii dhaqaalaha ahaa doonayo koox calooshooda u shaqaystayaal ee qaranka diidan inuu ku wareejiyo dadka reer Gado taliska booliiska inuu ka qanciyo waa ka codsanaynaa. taliska booliiska taaleeya gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka waxaan leeyahay Maxamed Dheere taariikhda gobolka Gado guumaysiga 4 qaybood baa laga guumaystay. addo dhinaca Itoobiya xigta addo la yiraahdo waxa ka guumaysatay Habashidii xilleeda jidhay, dhinaca Luuq waxa ka guumaystay Talyaani, dhinaca Baardheer waxa ka guumaystay Ingiriis, dhinaca xuduudda NFD waxa ka guumaystay Ingiriis iyo Jood. taariikhda mas-uul Soomaaliyeed barasaabnimadiisii ka hor oo gobolka Gado qof inta laga qabto loo dhoofiyo dal kale ma dhicin asaga ka hor.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa marar badan ku celceliyay in ciddii isaga ugu hogaansami weyda waxa uu raba ay la kulmi karto cawaaqib xun oo ay xitaa nafteeda ku weyn karto waxaana xusid mudan in magaalada Kismaayo marar badan dil loogu geystay xilliyo habeen ah waxgarad iyo aqoon-yahano dhaliilay habka uu wax u maamulo Axmed Madoobe.